laakiin waxaan toos u galeynaa marka financial education ka uu sheegay talo ma ku jaamacadahan ku dhiganaynayba waxa uu leeyahay marka qaacidada koobaad ama cashirka koobaadi dadka la yiraahdo rich-ka don't work for money lacag uma shaqeeyaan inuu lacag baan wada shaqeynaa dhamaanteen mushaar baan wada sugnaa laakiin dadkani ayagu lacag uma shaqeeyaan marka statementkii hore uu dib inoogu soo celiyay in dadka buurka ama middle-kii oo xirfadleydii laga yaabo qaar badan oo inaga midin yihiin inay u shaqeeyaan iyagu lacag u shaqeeyaan laakiin aabaha qaniga ama qofka qaniga ama qofka skills-ka bartay waan arkaynaa skills-ka cashiraantana kowka marka waxa la rabo inaad haddaad lagu yiri lacag ha u shaqeynayso aasha isweydiinayso waxay tahay xageen wax u doonaa weeye ma meel wax ka soo qaadaad u baahan tahay Soomaa aqli wuxuu keenayaa shaqo kadibna cycle wareeg waxaad samaysaa meeshii aad ku noqonaysay dhaqaalahaagu maaragtay ku madax banaanaanaya tag buu keenayaa Soomaa laakiin lacag ha u shaqeynina aqligu ma keenayo marka waxa jiro in leeyahay qofka rich daddies ku sheegaya cash flow-giisa hantidiisa xaq uu ka keeni karaa goormu freedom ka gaaray inuu maaragtay uu xor noqdo waa su'aasha ka jawaabayay marka afartan dhinac baa jira marka afartaas sides baa jira dhanka u horeeyay waa employee oo garanaysaan waa shaqo inaad wax ku raadiso income-ka soo galayay inuu noqdo shaqo waxa qaybta labaad waxa weeye self employed kuna waa maxay waa qofku inuu salahan xirfad leeyahay dhakhtar yahay kadibna uu isagii furtay dhakhtarkii service-ka iyo adeegga bulshada uu qabanayo halka income ka soo galay waxaan maleynayaa adigu waa dareemi karaysaa meesha income ka soo galay sayirka meesha afartaas sayir meesha kaga jirto saddexaad waa developer-ku waa qof marka wuxuu leeyahay hanti waxa uu leeyahay marka shirkad buu leeyahay laakiin shirkadiisu shirkad weyn oo gaadhay ma aha madax banaani dhaqaale oo dhameystiran ma gaadhin laakiin uu ka duwan yahay self employed qofka employee-ga la yiraahdo wuxuu leeyahay you have a job wax shaqaad haysataa qof kala boss ku ah adiguna waxaad kaliya u rafaadaa job security baad u rafaadaa mar walba dad meesha ka tagaystiraado waxaad is oranaysaa waxa kugu dhici karaya waayo wax meel ku yaal hanti mali wax asset oo leedahay ku shaqeeyay ma jiro marka waa inaad job security mar walba ku dhaganaato oo ka fikirtaa oo istiraada war shaqadan hadaad ka tagto maxaa dhici karaya marka waxaad ku dadaalaysaa shaqadaada inaad doorto self employed ku wuxuu yahay qofkani shaqo ayuu leeyahay waa lawyer sala wuxuu bartay skills ama professions kala duwan ayuu qofkani bartay wuxuu noqon karaa qof dhaktar ayuu noqon karaa wuxuu yeelan karayaa dukaan wuxuu furan karayaa hotel buu furan karayaa dadka cuntada uu ka siinay marka kuwaas oo kale waxa la yiraahdaa self employed ayaa la yiraahdaa developer-ku marka waa maxay wuxuu leeyahay you own a system that others operate bal u fiirsada waxay ku kala duwan yihiin adigu hadda system baad leedahay system baad haysaa shirkad baad leedahay laakiin yaa operate gareynaya yaa activity-ga qabanaya adu ma qabanaysid laakiin dad kale ku qabanaya shirkad marka waxay ka dhigan tahay shirkadan waa shirkad xogaa yaro weynaatay bay ka dhigan tahay oo dhaqaalaheedu oo kor u kaco qofkani haysta waxaad isticmaashaa marka use other people's time and money bal fiirsada waxaad isticmaashaa dad kale lacagtood iyo dad kale time-kood time-kii dadka kale wax ku soo saaranaysaa halkii adigu location-ka inta tagto aad time-ka ku bixinaysay hotelka inta tagto aad maanta oo dhan adigu aad ka shaqeynaysay ama baad meeshii dhex fadhiday laakiin time-ka dad kale hadda isticmaalaysa energy-ga dad kale isticmaalaysa waxa ku imanaya marka maxay profit ba xagga kaaga imanaya waxoogaa marka shirkadan waxoogaa way ka duwan tahay investor-ku waa meesha u dambeeya inaad noqotid qof maalgasho shirkadaha maalgashada oo isagu gurigiisa iska joogo laakiin waxa isuga soo dhaca income baa isuga yimaada asaga faa'iido socotoon baa u timaado marka wuxuu leeyahay your money works for you wakas lacagtaadi baa adiga ku shaqeynaysa bangiga Shabeello kale dadka share-ka ku leeyahay kama shaqeeyaan Soma location-ka ma yimaadaan board bay leeyihiin waxa loo sameeyay qof maaragtay gudoomiye ka loo sameeyay gudi arrimaha wixii saaran baa jirta cidi maaragtay iyagu ma aha dadka activity-ga qabanaya iyagu kaliyeeta waxa soo gaaray information-ka shirkadda meel bay iska fadhiyaan wixii faa'iido la helay ay kula heshiiyeen marka organization-ka ayaa iyaga gaadha marka qofka waxa la oran karaa lacagtiisa ayaa u shaqeysa marka lagu leeyahay ha u shaqeynin lacag waxay ka dhigan tahay waa inaad halka tagtaa waa inaad maaragtay last stage ahaan bay u shaqeeyaan location-kii bay joogaan oo way shaqeynayaan laakiin qoladan maskaxda ka shaqeeyaan hadday xataa ay daalaan waxay ka dhigan tahay information baa soo gaaray macluumaad shirkadda ku saabsan
kadibna waxaasay ku sameynayaan maaragtay ay discussion ka sameynayaan de maadaama owners yihiin oo iyagu maaragtay shirkadda maalgeliye yihiin ayaga waxoodu waa information u imanaya information kana waxa maaragtay laga faaqidaa ama taxliilka laga sameeyay waa maskaxda dadkan marka maskaxdooda isticmaalaan laakiin qoladani waxay isticmaalaan shirkooda isticmaalaan maadaama locationka joogan ayaga shaqadii qabanaya marka ka dhigan tahay sheegaya qolo walba waxay leedahay binoo sheegay kan waa job security waxay ilaashadaan financial security maadaama de financial ay gaadheen oo job aynan ahayn laakiin wax yar bay yar samaysteen marka ayaga waxa la oranayaa financial security hade hotelkiisa yar buu ilaashanaya qofku inuunan maaragtay hoos uga dhicin mar walba hore u socdo qoladan financial freedom waayo kuwan way ka sareeyaan hantidooduna maaragtay way ka xoog badan tahay ama businesskoodu uu ka xoog badan yahay ultimate financial freedom waa meeshii u dambeysay way qofkan xataa riskigiisu aad buu u yar yahay waana meesha maaragtay taxiga dawladda ugu yar way laakiin adiga mushaharka qaataa taxiga uu kaaga badnaanaya